إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. aadaanka salaadu wuxuu noqday dhawaaq dunida meel walba gaadhay oo si weyn loo yaqaano kaasoo jiil walba la jaan qaaday. agabyada casriga ah ee korontada ku shaqeeya ayuu ku ladhmay. moobaylada aan sidanno ayuu ab ahaan ugu jiraa. shaashadaha tiifiyada iyo idaacadaha dunida islaamka ayuu ka soo baxaa isaga oo jadwalka salaadda ku jaango'an. had iyo jeer bahiirta waa barisa waxan badani ma jiro oo dunidu waa mid iska deggan. laakiin dalalka islaamku subaxa hore sidaas ma ahaa. yeedhmada aadaanka oo luuq dheer ku baxaysa ayaa jiha walba ka soo baxaysa iyada oo mu'aadiniintu dadka ay ku wargelinayaan in salaadu tahay mid ka khayr badan hurdada. dadkii oo weli darintoodii dul hurdaa oo habeen u maleeya in dhawaaqa aadaanku uu ka dulbaxaa waa astaan dunida islaamka u gaara. hannaankaasina wuxuu ahaa mid soo taxan ka badan 1400 oo sano. إذا ما سمعنا الأذان في بلد ما علمنا أن هذا البلد haddii aynu meel aadaan ka maqalno waxaynu ogaanaynaa in dhulkaasi yahay meel muslimiintu leedahay. هذا البلد وهذه الأرض هي أرض مسلمين. sidaas waxaa leh sheekh axmed yoonis. الأذان هو شعار الإسلام وأعظم شعائره. aadaanku waa shacaa'irta islaamka waana mid ka mida kuwa ugu waaweyn. dunidan waxaa soo maray mu'aadimiin caan ah oo luuqda ay ku addimayaan tahay mid soo jiidasho leh, kuwaasoo marka ay mikrofoonka hor istaagaan oo dhawaaqa aadaanka bilaabaan judhiiba soo jiidanaya dhagaha dadka. taasina waxay keentaa in cabbaar yar kadib goobtii ay ka addimeen ay soo buuxdhaafiyaan muslimiin dhawaaqa aadaanku soo jiitay. baldhigo dhinacyadaada oo dhagahaaga fur, u fiirso masaajidada kugu meeran, u kuurgal sawdka sameecadaha masaajidadu soo daynayaan. mu'aadiniinta magaalada aad joogtid midkeebaa ka tilmaaman kuwa kale. khadar ahaan degmadii yaraantii aan ku soo barbaaray ayaan weli xasuustaa mu'aadiniintii oo cadwacnaanta ku tilmaamnaa. kuwa weli maankayga ku lamaan waxaa ka mid a mu'aadin dhallinyaro ahaay oo la dhihi jiray cabdirasaaq xaliike. mu'aadin walba oo dunidan jooga halka uu ugu jecel yahay inuu kolun ka addimaa malahayga waa masaajidka xaramka. laakiin halkaa waxaa yaalla shuruudo ay tahay mu'addimku inuu buuxiyo inta uusan mikrofoonka hor istaagin. shardiga koowaad ee qofka xaramka ka addimaya wuxuu yahay أن يكون المؤذن لا يقل عن 30 سنة. mu'addinku waa inuusan ahaan mid da'diisu ay ka yar tahay 30 sano. أن يكون المؤذن ذو ثقافة إسلامية. waa inuu leeyahay aqoon guud oo islaamiya, waayo waxaa dhici karta dadka xujayda ahi masalooyin diiniya inay weydiiyaan. يسألوا سؤال في الدين أنه يكون في عنده صوت. ugu dambayntii waa inuu yahay qof cod dabacsan oo dhowraya saxnaanta erayada aadaanka. ويكون مخارج صوته سليم. mararka qaarkood erayada addinka oo si khaldan loogu dhawaaqaa waxay mu'addinka u horseedi kartaa dembi weyn. arrintaa waxaa inoo tusaalaynaya sheekh maxamed saalax. وبعضهم أيضا يقول أشهد أن محمد رسول الله. qaarkood baa waxay dhahayaan buu yidhi markay addimayaan
أشهد أن محمد رسول الله. marka uu saa leeyahay wuxuu weynaynayaa naftiisa oo uu ku tilmaamayaa rasuulkii Alle taasina waa dembi. لأنه قال أن يعني هو يعظم نفسه ويشهد أنه رسول الله، وهذه مصيبة. أشهد أن فتحة وليست ألف. dad badan waxay aaminsan yihiin mu'adinimadka meel yar hooseysa marka dad badan ma ku yiraahdaan ninkii wasiirka ahaan jiray baa maanta mu'adima ma wallahi way hanbaliyana waxay dhaan markii la kala yaacay ee dawladda aad ka tirsan ninba meel ka dhacay nin gaalo u galay nin turku u galay nin balaayo u galay ninba meel ka dhacay adiga ilaahay hadduu aadinkii ku siiyo masaajidka kugu soo reebay godoba ma qabtay balaayo ma qabtay ilaah baa ku doortay aadinkaaga xajisay ilaahayno hadda ku horba way yaqaaneen anigu aadimo masaajidka xadxaadho masaajidka ilaaliyo gaarigu iyo horyaalo jamaacadada ku qaado martada ku soo dhaweeyo culimada ku qaado dadka buka ku qaado hoostaasan xagga diinta imaarta yaan ka hawadin jiray anigu weligeyba. kaasina waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Cigaal oo muddo badan wasiir ka soo ahaa dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya wuxuuna u waramayay wariyaha BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam. Cabdilaahi Sulfa waa uu ka tanaasulay fankii waxaana uu soo noqday cabsida eebe aan ugu yeedho Sheekh Cabdilaahi Sulfa. habeenkii ku xigay ayaan ku soo noqday masaajidka ninkii masaajidka ka adimay ayaa maqnaa halkii ayaan ka adimay habeenkaas habeenkii markaan meesha ka adimay subaxeedii isaga iyo magacaabay inaan mu'adin ka noqdo masaajidka marka waxaan idhi aniga halkaa ma sii joogi karo ciyaalkaygi waxay jiraan Jidda marka wuxuu amray in la soo raro ciyaalkaygi iyo hooyadood halkaas ayaan ka bilaabay masaajid sidaas ay ahayd dhimaashadayda Sacuudi. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: معاويين أبي سفيان ربي راليها كان نقضي وحو يري رسولك ربي نبدقلي نحريس كركي ساها تايان مغلي سقوله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. مؤذنين توقوا وقور تدالير دتك مالنت قيامه. رواه مسلم. كم من كافر أسلم بسبب الأذان وتساءل عن هذه الكلمات. إمسا ميدان مسلين هين كو إسلامي آذانك. dadkan diinta islaamka haysanay markii ay soo booqdaan wadamada muslimiintu ku nool yihiin waxaa soo jiita oo saameeya dhawaaqa aadaanka dhowrkii saacadoodba sameecadaha masaajidadu soo daynayaan. qaar badan oo dadka ka mid ihi waxay ka warrameen wixii ay dareemeen kadib markii ay maqleen aadaanka salaada. aktarka la yidhaahdo Liam Neeson waxa uu ka warramay wixii uu dhaaday kadib markii uu aadaanka maqlay isaga oo ku sugan magaalada Istanbul. wuxuu yidhi And the call to prayer happens 5 times a day, and for the first week it drives you crazy, and then aadaanka salaadu waa 5 jeer maalintii. toddobaadka hore la qabsan maysid kadib ruuxdaada ayuu raacayaa. it just gets into your spirit. It's the most beautiful. waa waxaad u qurux badan. magaalada waxaa ku yaala ilaa 4,000 oo masjid oo qaarkood yaabkooda leeyihiin. arrintaasi waxay igu dhalisay inaan ka fakaro qaadashada diinta islaamka. really makes me think about becoming a Muslim. isaguna waxaa dareenkiisa muujiyey Morgan Freeman oo ka mid ah raggii ugu caansanaa Hollywoodka soo maray. isaga oo aadaanka ka warramaya wuxuu yidhi most beautiful sounds in the world is the Muslim call to prayer. What was the origin of that? mid ka mid ah codadka ugu quruxda badan dunidani waa kan muslimiinta ugu yeedha salaada. isaga oo sii hadlaya ayuu rabaa inuu ogaado sooyaalka aadaanka salaada iyo sida uu ku yimi. What was the origin of that? jawaabta Morgan raadinayo ee ah sidee buu awalkiisii horeba ku yimi aadaanku waxaynu ka dhexelaynaa hadal Anna Smith oo ah aktarad Maraykanihi
ay 2012 ka jeedisay Williams College. Ardayda kolleejka ayay la wadaagtay wixii ay dareentay kadib markii iyadoo Qaahiro joogta ay maqashay aadaanka salaada oo qolkii hoteelka Qaahiro ay ka deganayd jiha walba ka soo galaya. Waxay tiri, The first time I heard the call to prayer was in Egypt in a fancy hotel, and I heard this thing that I thought was just the waxaan maqlay waxaan u maleeyay inuu yahay danankii dunida oo yeedhaya. Qolkaygii ayaan ka soo baxay oo barxaddii hoteelka ayaan hadba dhinac u dhaqaaqay aniga oo ku dadaalaya inaan xaqiiqsado balin adduunkii hadda uun bilaabmay ama dhammaadkiisii la gaadhay. trying to find out if the world was either beginning or coming to an end. And I was told that it was the call to prayer. You know the story? waxse la ii sheegay bay tiri kaasi inuu ahaa aadaankii salaada. intaa kadib ana ardaydii waxay la wadaagtay taariikhda aadaanka iyada oo soo xiganaysa wadaad suufi ah oo New York imaamka ah. He went with his followers to Medina, and they built there the first mosque, built a mosque for prayer. And after having built the mosque, they wondered how they would call the people to prayer. markii Nabi Maxamed nabadgelyo korkiisa ahaatay asxaabtiisiiba Madiina u soo haajireen ee ay dhiseen goob cibaado ayaa waxaa markiiba soo baxday weydiinta ah, How will we call the people to prayer? sidee baanu dadka salaada ugu yeedhi karnaa? qaar ka mid ah asxaabtii nebiga waxay soo jeediyeen fikrad ah in la garaaco bir dhawaaq leh. qaar kale oo asxaabtii ka mid ihina waxay soo jeediyeen in buun fooriya la yeedhiyo. laakiin labadaa talo ee la soo jeediyeyba rasuulkii Rabbi nabadgelyo korkiisa ahaatay ma cajabin, waayo mid walbaaba waa astaamaha dadyaw kale. We can't use a bell because the Christians use a bell. ma isticmaali karno dawan, waayo kiristaanka ayaa adeegsada. We can't use a horn because the Jews use a horn. kadib maxaa dhacay? And one of the followers of the prophet came and said, I have had a dream. mid ka mid ah asxaabtii rasuulka ah oo ah Cabdullaahi ibnu Sayde ayaa nebiga u sheegay inuu ku riyooday aadaanka salaada. isaguna waxaa mid taa la mida waa riyadaasi arkay Cumar bin Khataab. kiiba ogolaadu hirgeliyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo yidhi yaa Bilaal qum fanaadi bisalaah. Bilaalow istaago aadaanka qolyahaasi ay arkeen, Cabdullaahi iyo Cumar ay arkeen, dadka ugu dhawaaqa ku yeedhi. meeshii ugu horraysay ee aadaan laga maqlaa waxay ahayd magaaladan Madiina. markaasoo isagoo cod qurxoon ku aadimaya Bilaal taariikhda uu ku galay mu'addinkii ugu horreeyay ee muslimiinta. halkani waa Madiina oo goor gabaldhac ahaan soo galay. deganaanta magaaladu waa mid markiiba aad dareemaysid. waa meel sanqar yar oo Maka aad uga duwan. si la mida Maka kumannaan muslimiinihii waa meel ay soo booqdaan oo barakaysan. laydha macaan ee halkan fiidkii ka dhacaysaana waa mid xasiloonida naftaada xoojinaysa. aniga oo jawi wacan ku jira oo jidadkii Madiina hadba dhinac jaleecaya ayaan meel dheer waxaan ka milicsaday nalalka bidhaanta dheer leh ee masjidka nebiga docolbaba kaga dheggan. waa ilays baahsan oo indhaqabad leh. waa iftiinka ugu weyn ee indhaha reer Madiina ay arki karaan. safar dheer kadib markii dhismihii masjidka nebiga aan ku soo dhowaaday ayaan kabaha intaan la baxay kaabad yar oo waxoogaa masaajidka u jirta fadhiistay si aan uga ilbuuxsado bilicda masaajidka.
halkaa aniga oo fadhiya oo hadba dhinac dhuganaya oo dhimraya oo laabkacay oo naftayda ku canaananaya sidii ay waddadii wacnayd uga weecatay ayaa mar qura waxaa dhegahayga ku soo dhacay cod dheer oo sameecadaha masaajidka nebiga ee magaalada madiina ka soo baxaya codkii aan maqlayna waa ka Allahu Akbar markii aadaankii salaaddii dhammaaday ayaan dhankii masaajidka u dhaqaaqay oo muslimiintii dhabbada marayay dhinac ka raacay aniga oo markaana ku ducaysanaya yaa rab wayaa munzila alaayaati waalfurqaan baynii wa baynaka xurmatu alqur'aan ishrax bihi sadrii limacrifati alhudaa wacsim bihi qalbii من الشيطان واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأمض مآربي وأجر به جسدي من النيران maalintii xigtayna waxaan aaday masaajid loogu magacdaray bilaal oo madiina ku yaalla buundadan anoo hoos maraya ayaan dhul dheer waxaan ka maqlay aadaan salaadeed oo ka soo yeedhaya masaajidka bilaal